hagar kada dantadana hawl qabadon ansanahtun tadana hagar kada dantadana iga geli horumarka tilmaanta hagaashiya ku xira horarta dabadhulkaagana hoosu dhugo iga geli horumarka tilmaanta hagaashiya ku xira horarta dabadhulkaagana hoosu dhugo عرابو حليلة إيو هيان قرينو نهاي عرابو حليلة إيو هيان قرينو نهاي هشتي هذا كوا إناني قد مرنو بالشوي هلكو همينا عرابو حليلة إيو هيان قرينو نهاي عرابو حليلة إيو هيان قرينو نهاي هشتي هذا كوا إناني قد مرنو بالشوي هلكو همينا هذا إيه تصالها هدفكينا قارني أربطكي يا بدا وقوة هجانا waa taariikh waxa halkan dhisaya iyo dadka dhisaya iyo dadka isku xilqaamay iyo dadka mas'uuliyiinta ee maamulaya meesha idin kama xigaan hadii aad wax badan maqasheen dadka reer muduga wax ma qabsadaan dadka reer muduga waa dad iskhilaafsan dadka reer muduga waa dad aan horumar ogolayn maanta waxa laga gudbay waa cusub baa mudug ka bariyay waxa loo soo jeestay saqiir iyo kabiir mid dawlad u shaqeeya iyo mid aan u shaqayn mid waxaysan iyo mid aan waxaysanba inay gobolkooda qurxiyaan inay gobolkooda dhistaan sida aan santarka Soomaaliya u nahay sida aad ogtihiin gaalkacyo taariikh iyo magac iyo maamuus dad ku leh baa ka dhashay maanta waxaan doonaynaa dadka magacoodii iyo maamuuskoodii kuwii bedel lahaa inaynu noqono gaalkacyo inaga ina sugaysa garoomadeeda ayna sugaya wadooyinkeeda ayna sugaya nabadgelyadeeda ayna sugaysa horumarkeeda ayna sugaya dadkeeda mideynteeda iyo isku soo dhaweynteeda iyo isfahantiinteeda ayaa ayna sugaysa waxa la rabaa in khilaaf la dhameeyo qabyaalad la dhameeyo kala qaybsanaan siyaasad la dhameeyo inagoo isku duuban oo ul iyo diirkeeda inaynu dhisano dalkeena waxaynu taaganahay oo ugu horeysa garoonkii diyaaradaha ee gaalkacyo qof walba oo jaaliyada dibadda jooga waxaan ku leenahay oo baaq ehelnimo baaq qaraabanimo baaq sokeeyanimo baaq walaalnimo ugu soo jeedinaynaa war annaga gacanta ku hayna war annaga qorraxda u taagan war annaga kuleylka u taagan war annaga daamirka u shidayna war wixii aan ku shidi lahayn wixii aan ku dhiman lahayn idinkaan hiil idinka doonaynaa idinkaan waxaan idinka doonaynaa garoonka inaad gacan ka geysataan garoonka inaad dhistaan garoonka inaad nagala qayb qaadataan haddii kale waxaa imaanaysa inaannu annaguna halkaa daalno oo aannu halkaa ku banjarno oo wax iyagii tacab khasaar ay noqdaan waxaan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadna inaad u soo jeesataan dalkiinna saad u dhisi lahaydeen saad wax uga qaban lahaydeen saad u qurxin lahaydeen mudug maanta taariikh buu qorayaa gobolka la yidhaahdo wuxuu odhanayaa meedadkaygii yaa ileh yaa dhisaya yaa camiraya yaa ileh yaa sugaya su'aashaas jawaabteeda idinkaan idin daynayaa waxaan wada jirlo dhalin ninna ku dhaadan maaye waxaan wada jirlo dhalin ninna ku dhaadan maaye